waxaan mikrafoon ku soo dhaweynayaa hogaamiyaha xisbiga Kacab Maxamed Ibraahim qabiyadre bismillah waxaa si muhiim milgale sharaf leh qiimo leh oo qadarin leh maaragtay u soo dhaweynayaa guddiga qabanqaabada ee xafladan ee hablaha quruxda badan leh reerka inamada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashii labada xisbi ee qaranka xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani iyo daayarta kale aqoonyahanka reer Soomaaliland ee halka ka soo qayb gashay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa caawa waa inoo farxad xafladan waxay ku saabsan tahay waxaynu u dabaaldegaynaa inaynu soo dhaweynaynaa maalinta qiimaha inagu leh ku xardhan qalbiyadeenna kuna xardhanaan doonta 26 Juun 2025 ee aynu ictiraafka ka helay waddanka weyn ee Israa'iil ayay xisbi ahaan markii aanu afkaysa saarnay intayadii madaxda ahayd ee joogtay hablaha iyagina la tashanay madaxda waxaanu isla garanay inaanu xafladda u qabanno casho sharaf kooban oo elitiska ciddii nagala soo qayb geli kartaa nagala soo qayb gasho taasoo ku maamuusayna maalinta weyn ee ictiraafka helay waxaanu leenahay dadweynaha Soomaaliland meel kastay joogaan hambaliyo dalkeena haddaynu dib ugu noqono taariikhdiisa Soomaaliland 60kii ayaynu qaadanay xornimo 32 dowladood adduunyada ka mid oo Israa'iil ka mid tahay ayayna ictiraafay innaga jibba ayna haysay oo koonfurta walaalaheen baynu la tagnay waynu la midownay Union Act bariga aynu qornay laba saxiixin laakiin jibbadii inoo geysay halkaasaynu la tagnay isla 61kii waxaynu kala kulannay markiiba isbeddel aynu ka aragnay inay nimanka inoo walaalahay inaynu waxaynu ula tagnay aanu dhadhanba u lahayn madaxweynihii qaata ra'iisul wasaare qaata wax kasta iyaga isku koobay 61kii inqilaab baa dhacay inqilaabkaasoo ahaa inaynu kaga soo horjeedno wixii aynu ku midownay inaanay sideedii aanaynu wax ku qaybsan ka soo bilow mucaaradadu waqtigaasay soo bilaabantay dowladdii militariga ahayd bayna qabsatay 69kii ilaa inta halgan baynu ku soo jirnay waxaan garanayaan u soo joogay iyadoo bariiska aynu cunayno iyadoo dekada Berbera aan laga soo dajin markabaanu isu soo taagino baabuurteedu ay u baxaan xamar oo bariiskii baastay nooga soo qaadaan cadaadis halkii ugu darayd bayna lagu sameeyay waxa ka dhashay ururkii dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed Somaliland National Movement SNM ayaa ka dhashay 81kii waa burmay waxaynu dib ula soo noqonnay dagaal dheer kadib 91kii baynu dib ula soo noqonnay xornimadeena ilaa 91kii ilaa maantana 34 sannadood waxaanu halgan ugu jirnay inaynu kala hadno koonfur oo aynu gooni isu taagno xornimadeena ula soo noqonnay ilaa maalinta ilaa maanta walaaladeen shaarkayna haystay iyagoo oon marnaba inagu qancin miis kastoo isugu dhimaadno waxay nagu haystaan iyo waxaynu ka hayno mid toona istaragalka aynu soo marnay muddada dheer wuxuu ku soo gabagaboobay 26kii Juun 2025kii dowladdii ugu horeysay ee adduunyada super powerka yaa la idin bahalagelin waxay ka mid tahay Israa'iil wadamada super powerka bay ka mid tahay Israa'iil 17 dowladood oo islaam ah ayay la awootay dhaqaalaheeda ama technology-geedu 17 dowladood waxa imikayna leeyahay oo inoo bahalagelinaya ama maaha qadiyada dadkeena ama dhagaha lagu riday ama in lagu daba socdaa markii ictiraafka aynu helay waxa la leeyahay maaha horta diin yaan la idin oran waa diin sharcina maaha oo xaq baynu u leenay oo waa tii United Nations Security Council ka laga aqriyay waa arrin siyaasadeed arrinteena lagu daba socdaa waa arrin siyaasadeed weey
ما هدي شرعنا ما وحويان الرسيا السداد أي أين لابد من صلاة إلى معلمتها إلى مانت وحدي الشيء عاوة دولتها إسلام كأي صاحب كإسرائيل يهشي سيد كل شيء ستة دولة إسلام حديد دولة له دولة وحكم ذا مصر وحكم ذا جوردن وحكم ذا موروكو وحكم ذا إمارات وحكم ذا بحرين وحكم ذا والدولة وكوا سوى كوي عربت كوي إسلام كانوا وحكم ذا وحكم ذا تركي جايو هي وحكم ذا أسرتان لبدا ساكم ذا ستة دولة إسلام كابا ستة بالليل كو وحول الله هاي ودنك إيجابتا مصر وحو كل شيء هشيس قاستا لحية 60 بليون أو دولار أي سيان إسرائيل وحو كل ودنك أردن وبيها عباد ووحا سيسي إسرائيل وحو كل ودنك موروكو وإمك وقدم بي وعلى وحو هشيس بو لقى لي هبكا إنه إسرائيل هبكا كيبسدو حاجة تكنولوجيا يبقى مشتركة وحيلي ودنك إماراتك أي ودلي وحل اللي إمك وودنك فلسطين ولا لهن حسوقي فلسطين وحي هشيس لتا هاي ودنك الشينة ودنك الشينو وحكون ولا 1 مليون أو قف أو إسلام أيكون ولا 1 مليون ما تقف لك معي مساجد دودنا والله ترتري يجينا والله دمي حبسيا لو قري مل الله لم يلا يشاري عدم تقال معي هذا يشرد ود فلسطين ويودودا ودك الشيلة حديد دولة ودلي واحد مودا مركز أركتيها مركز صور ورسو واحد سرونسا الصومالي لاند ما أنت اعتراف بين السي ودنكي إسرائيل ولا حتى اعتراف كيني لما يجين وحوك كومي قيلا كان عذاب الدنيا تاسو الصومالي يعني ما كان ولا لا هاي نسكت كاين أي روح ولا هاي بريجي هنا لحدنكي أي سكوك يد ميسي لبي كومي سكاشكي إلى على أساسين نوض بالسعودان وحوح الله يا أبا حسن الشيخ مدحوينها دولة ديارة فرديت كالصوماليا إلى ما أنت وحكومة قية إلى مالنتي تركيا إمك السعودية قال الشيء ينو ريجيو سفر دير بسوقله أو تقاله أو صومالي لان اعتراف كذا إكسامبل يربان السنة يا بريجي دويت إما يوجي بطة سدا سوقله تقاله قله تقال كيسوق كجرة إما يوجا ayaa waxay kulmeen oo laga Turkigu oo ku wasteeyay inay wada hadlaan isu yimaadaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya jasiiro waa dhageystay wuxuu ka yiri haday annaga wax na weydiistaan ay badda weydiistaan annaga siinayna waa kii ka dajiyay liido waa kii tusayay lahaa wata taaway baqaado maantana tiitu lamida isagoo qayladiisa waqtiga iyo orodkiisa حتى جزيرة وحكيل ودولتها وين أدوك كم تقول وحوانا كما قطعنا وحنا ندعي كرتولي إن الحريب لا يلمو عالمي هو دو إن الله يلمو وحقف كستو عقل لا أمه وضع عرورتها جرانس سومالي بيان ما ماضو سومالي حيكون ما ماذا روح امري من نولاده وحل عقيبه alafkaana kuma seego wax laga caraantaba ruux imreeyba noolaado wax la caqiibeeyaba qofku hadduu daa noqdo nin weyn oo qof weyn oo xaruusanaya si kasto wax loo sameeyo miyuu soo noqonaya ruux imreeyba noolaado wax la caqiibeeya camalkaana kuma daayo wax laga caraantaba xasan sheekh wax kasto kutub kasto lagu akhriyo waa camal lagu dhashay reer Soomaaliland alafkaana kuma seego wax laga cileeyaba yani waxa ilaahay loo qoray cid soo taagi kartaa ma jirto maanta itraafkii baynu helnay
mid un baan halkan u marinayaa dadweynaha Soomaaliland waliba qurba joogaan caawa la hadlaya tashuush fara badan Yurub oo dhan baan soo marnay ilaa iyo North America Canada ka gaadhnay waxoogaa waxaad moodaa community-gii mid ahaa ee reer Somaliland ee midnimada aan ku aqaanay oo waxoogaa yara siyaasaddu kala leexleexisay waxaan caawa halkan u marinayaa inay ku midoobaan halka maanta iyo ictiraafka aynu helay reer Somaliland inay midnimadoodii iyo wixii lagu yaqaanay soo celiyaan inuu tashuushkaas inuu halkaa ku haro qurbaha idinka siyaasadda Somaliland meelaha lagu karkariyo waliba UK baa kowka annagu ka ahaan xafladda waxaan u qabanay waxaanu doonaynaa inaanu tusno xisbiyada kale ee wadan iyo ka inaanu kow ka nahay qadiyadda Somaliland oo aynu number 1 ka nahay tadma heetu kastoo dhacda diyaar baan maalintii dowladda lagu dhawaaqayna madaxdayadu anagu waanu heesaynay in aragteen mooyaan meel walba waanu ka dabaaldegnay xaflad kasta waa joognaa waa ogtiin gudoomiye xisbigu shalay waa hadlayay daraad waa hadlayay meel aanu kaga maqanahay ma jirto qaar baaba nagu yiri kacaankii baa ka dheeraysan oo xataa dawladdii baa ka dheeraysan daatiin reerka waxaan doonayaa labada xisbiye kale qarankana waxaa halkan fadhiya Axmed Cadarre iyo Umar Xasan baa jooga ila community-ga inteenu isu nimaadna in la mideeyo oo waliba UK laga bilaabo oo aynu dhinacaysa saarno oo ictiraafkaas wuxuu la dhigmaa 40 dawladood oo adduunku ay ictiraafay xayiraysan Israa'iil waxay ka mid tahay super power-ka adduunyada ka mid tahay taasaan idinku dardaarayaa waxaan idin leeyahay waa in la ictiraafay waana la labaynaya waa la saddexaynaya waa la tobnaynaya yaa laydin bahalagelinin wadan aan islaam hayn baa ictiraafkeydii siiyo walaa xogaa calaamadsan now toddobadaa sideedaa dowladoodba waxay la leeyihiin xidhiidh waxay la leeyihiin investment bay la leeyihiin waddamadii islaamka xasan sheekhna waa ka sidaa leh meel adag baynu qabsanay geed adag oo aan dhacayn baryaha mar haddaad aragto Israa'iilna Maraykanna waa ku xiga Ethiopia ku xigta Hindiya ku xigta way istaba socdaan insha Allah biidnillah wanaagna waynu filaynaa wal baan idin rajaynayaa haddii la hayraa aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh